قفل بوجوجو حكم كمانتا قف باوغا دمبين دونا سؤاشان ربنا إنا اسويدينا waxay tahay hadii aad ra'iisul wasaare tahay intii aad joogto maxaad uga tagtay hadii aad madaxweyne tahayna intii aad joogto maxaad uga tagtay hadii aad wasiir tahayna wasaaradaada maxaad uga tagtay hadii aad baarlamaanka tobnaad tahayna maxaad uga tagtay meeqa sharci ayaad baas garaysay qof waliba waxa lagu la xisaabtamayaa 4 sano uu joogo taariikhda uu ka tagay ugu dambeyntii marka waqtigeenu dhamaadana lama dhihi doono meeqa maalmood aan muranteen yaa muranki ku adkaaday waxaana la kula xisaabtami doonaa maxaad dhisteen waxa kaloo la kula xisaabtami doonaa maxaad dumiseen waxaan rajeynayaa maadaama aan masaajidka ku jirno taariikhdoona inay xusto inta badan oo dhisnay waa maadsantii waa in shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaruhu ay ka duwan yihiin shaqaalaha intooda kale si iyagu ay tusaale u noqdaan in la is abaabulo waayo waa guddi leeyahay sababtu waxay tahay subaxii 8 barka ilaa maalintii 5 galabnimo kulligiina isla joogo idinka isu yimaada idinka wada shaqeeya haddii aadan idinku isku faraxsanaynina macnaheedu waxay tahay shaqadiina kuma faraxsanidina haddii aadan shaqadiina ku faraxsanayna waxaad ka tegaysaan xafiiska idinkoo niyad xumadina waxaad ula tegaysaan guriyihiina iyo carruurtiina iyo xaasaskiina meesha aad ka shaqayso inay kuu wanaagsan tahay mustaqbalkaada iyo caafimaadkaada u wanaagsan tahay dalka iyo dawladnimadana waa u wanaagsan tahay waayo waqtigaada inta ugu badan oo wax qaban kartid waa soo jeedid xafiiskan aad joogtaa wiilasha iyo gabdhaha ama madaxda u tihiin oo furunta dagaalka jooga oo naftooda qadimaya mas'uuliyadda idinka saaran kuwiina saraakiisha oo garbuhoodu guduudan yihiin oo garaadaha waaweyn haysta oo halkan fadhiya wiilasha iyo gabdhaha hooyooyinkood iyo guryahoodii ka soo tagay oo aqbalay inay dalkan difaacaan oo diyaar u ah dalkan inay xoreeyaan oo aqbalay idinku inaad madax u tihiin mas'uuliyadda idinka saaran mas'uuliyaddaasi waxay tahay idinka madaxnimadu inay daacad idinka tahay hoggaannimadu inay daacad idinka tahay iimaan inaad leedihiin inaadan dhiiggooda ku ciyaarina Soomaaliya waxay maraysaa dariiq ka duwan dariiqi hore waxay u jeedaa iftiin ka duwan iftiinka hore waxay haysataa madax ka duwan madaxdii hore waxaa ka jira nidaam cusub oo dawladeed oo ka duwan tii hore waxaan ku amrayaa ama farayaa taliyaha anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magac waxaa dhalatay xukuumad shacab muddo dheer kadib ayay dadkeennu dareemayaan dawlad iyaga ka timid iyagu leeyihiin iyaga u shaqaysa haddaba si aad qayb uga noqoto talada dalka oo la xisaabtanto madaxdaada fikradahaaga wanaagsan ugu biiriso wax ka dhisto dalkaaga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ka jawaabayaa qaar ka mid ah fariimihiina qayb ka noqo talada dalkaaga oo fariintaada noogu soo dirta ciwaanka hoos kaaga muuqda maanta waa maalin iftiin cusub u ah ganacsatada iyo beeralayda ka yimaada labada shabeel oo ay u dhib yaraan doonto mustaqbalka inay ganacsadaan maanta waa maalin dhib yar oo u dhib yaraan doonta mustaqbalka dadka Soomaaliyeed oo meelahaas ka jooga maanta waa maalin iftiin u muujinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah shaqadii ay soo bilowday xukuumadda 2 sano ka hor ayaa mira dhashay 2 sano kadibna waxaa la arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo mashruucyadan u dhamaaday shaqada maanta aan hayno 2 sano ka hor waxay u muuqatay inaanan ahayn macquul maanta waxaa idin muuqda iftiinkaas aan hore idinkugu sheegnay waxaan aaminsanahay marka in haddii shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda isgarab istaagaan sida waayahanba dhaqanku ahayd la gaari doono horumar intaan ka sii weyn
haddii gabdhaha soomaaliyeed iyagu ay kala qaybsan yihiin oo dhallinyaradu kala qaybsan tahay oo culummadu kala qaybsan tahay oo siyaasiyiintu ay kala qaybsan tahay oo cid waliba ay aaminsan tahay fikir ka duwan cid kale su-aasha aan isweydiinayna waa maxay marka waxa ay tahay maxaan ku heshiinaa maxaa dhabka dhigi kara hanaanka dhab heshiisiinta ay wasaaraddu inoo keentay maxaa naga hadlaysan maxaa qarin kara ceebta ummadda maxaa iftiimin kara sharafta ummadda soomaaliyeed maxaa soo dedejin kara inay dadka soomaaliyeed midoobaan mar labaad waa inaan aqbalnaa marka hore su-aashaas si looga jawaabo inaan fahamno waxa naga halaabo